بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن سلامة يا أمد الصوماليات دبد يداخل بقرها. وعن سلامة يا بهدينا الصحافة دا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعن عبارين يا هو قدومي كحجين كي أورك الشباب أحمد محمد إسلام والله قصوا بالله سديدي بيش اللولية إلا صدح يطبنك بيش اللولية إن كبضاً بقول يكون تمويل الطليرة أرجع حسده وكتر سنة أولوغي سجالك بيش اللوليا أحمد محمد إسلام دقمة أفمدو يقبل كتشوبه هوسه وحكدري بقول الطليرة الصومالية ده هويين يا أبيال أي سكر صدين كواسو قلبنا يقلب لودي أورك أرجع حسده على الشباب قلب كاسو يسوق شرو قريها قربها اللي جرده دب تشاحيو مينوي كشعب كصومالي اللجوها لاجو يو قلب كله كاسو اللي جي ديجان كويل مارو أو كلا برتو دقموين كأفمدو يشرب يدقمل حجر قبل كشوبه هوسي بس أو عكر عاي مركي قلب كأرجع حسدا لو ديارية دولة هالشنبي عربتي قالد ويدي بين لو ذي حسوق iyo dhibaato loo geystay dhalinyaro Soomaaliyeed isla 12 bisha Luulyo rag meesha ka fidxaday oo dhalinyarada ah wixii dhintay iyo wixii dhibaatoobay mee wixii kale rag baadi goobkooda ku jiro haddana meesha la yiraahdo aabay iyo suubay inay argagixisadu ku laysay arinta ayada ah waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun saddexdii bisha Luulyo ciidankii gafur culus Kenya wuxuu ka guuray deegaanka Gariley oo hoosta degmada Baardheere gobolka Gado xuduud beenaadka NFD-na ku taalo meesha rag dhalinyaro Soomaaliyeed oo joogay taladii aan bixinay waxay ahayd inay biiriyaan xarun amni iyo difaac leh sida ceelwaaq iyo goobo kale amar ka soo baxay kooxda Axmed Madoobe Kismaayo ku heeraraysan baaragii ayaga ahaa meeshaas ayuu rag isdifaaci karaan ahayn la yiri waa inaad joogtaan 13 bisha Luulyo shalay oo khamiis ay ahayd baa weerar ka dhacay meesha waxa ku dhintay ayadana wiilal Soomaaliyeed oo hooyooyin iyo aabayaal ay wax bareen inta badan dadka qalabka lagu laayo wuxuu ka soo dagay dekada Kismaayo wuxuuna soo maray gudoomiye ku-xigeenkii ururka al-shabaab gacan ku dhiigle Axmed Maxamed Islaam waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed si guud si gaar ah shacabka Jubbooyinka Axmed Boqor ma aha wuxuuna u taagan yahay baabi'intiina dagaalka ugu badan iyo weerarka hadda asaga iyo ciilqabe Xasan Culus oo ay iska kaashanayaan ujeedadiisa rasmiga ah waxay tahay argagixisada Axmed gudoomiye ku-xigeenka ka yahay inaan laga xoreynin gobolada Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose gobolka Jubbada Hoose waa 5 degmo degmada Afmadow iyo degmada Kismaayo oo aan barnaamijka looga bixi karin ma ahaane degmooyinka Xagar Badhaadhe iyo Jamaame waxa haysto argagixisada boqolaalka ciidanka Axmed Madoobe markuu Kismaayo ka soo diray oo buulo guduud ka leexanayaan 20 kiiloomitir bay u jirtaa Jamaame waxa weeyo arinta waxay tahay ayaga baa la isku garaacay la fagari in wiilashii Soomaaliyeed argagixisada lagu laayo gaaladu intay qalab u dhiibto lagu xoojiyo argagixisada goboladii ka diyaar garoobay la dagaalanka argagixisadana la dhabar jabiyo mar kale waan cambaaraynayaa hooyooyinkii aabayaashana waxaan leeyahay Axmed barate sida loo noolaada inaan baranno nagu gacan siiya in gacan ku dhiglahaas la iska dulqaado maamul Soomaaliyeed dadkana u adeega la samaysto bulshada ka imaan doonta. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.